موضوعنا وحن نقضنا مانتا إن شاء الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شيطان وحيديه عدو يكيش عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إلهي سبحانه وتعالى بوعدس وزوجيت سيده wuxuu yiri rabbiyow ilaahay waxaad ii deysaa ilaa maalinta la soo saaray. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. انت نفتح اللي يداي الله يدبقه وطلب محو دبقنايا إلهي سبحانه وتعالى وكأقبلي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وإلهي وحيد وحد كمتاي هو الله دبقي مر الله لمركو هلي بلنقاتك الله سبحانه وتعالى اللي وحي أقيا بلنقاتك إلهي يعني ما رأيت إنه النبي هاي مركو بلنقاتك هلي أي وحو صوبا لكتاي وحي أدب بقناي نفط ومحوير. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحوت المامي بلن عدو من تيد الدرادي بلن وحن كو قادن إنان جدك توسن فريستا جدك توسن إنان استاقا oo midigan kaga imaada horayaan kaga imaada oo gadaalaan kaga imaada oo midig kaga imaada oo bidix kaga imaada oo ilaahay in badan oo kugu shukriyaada macnaha waxay ku tusaysaa takhdiidka meel allaale meeshii ay isku dayaan inay ka wanaagsanaadaan waan ka weeraray meel allaale meeshii raba khayrka baan ka soo galaya bahalkaas la rabaa in laga hortago oo macnaheedu maxay tahay aqeedadu ka weeraray oo maanta waxaad arkaysaa kuwo إلهي كم مشغول سبحانه وتعالى مخلوقات كيف يكون مشغولين انتو إلهي كم مشغولين الله أمورتي عركا يدولكا يأودا اسكاله وعارك لأي كاسا مكة وحل الدنيا ولا غير إلا فهم عدا وديس يعني وحو أديك سنة يا محي خيامه والبع وإسكده يكرقفكم مسلم كان إنه كم منجحابيه وإسكده يأينه أديك سنة وحل الدنيا مكة إلا فهمه ننكر وو دارتي إلهي هرتي بو ku dhaartay idminteeda daraadeed buu yiri wuxuu sheegay qaabku dagaalka u galay ee uu ku weeraray. إبليس شقديسي iyo dhaartiisiiba samadii buu ka bilaabay iyo jannada gudaheeda. nabiyullaahi aadam iyo xawaa buu tagay markaasuu geedkii la yiri ha cunina buu wuxuu u qurxinayaa inay cunaan oo jannada buu sidii uga saaray. nabiyullaahi aadam iyo calayhi salaam iyo xawaa buu yiri markaasuu yiri geedkan waxa la idigu diiday ma taqaana waa maya. هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إما لما ملك أو إلهي أكتي سقيمة كله أما ماشان إنا تقوارتان وحكا اللي دي مديدنا هداد جين تقمتان له فائدة ليس إلهي نمحيري سبحانه وتعالى
haddaad geedkan cuntaan daalimiintaad ka mid noqonaysa oo loo banneeyey oo jannadii baa la yidhi sidaad doontaan u dhex dega waxaad doontaan ka cuna laakiin geedkaa iska ilaaliya meeshiiba ka soo gala markaasuu yidhi geedkan haddaad cuntaan qiimaad yeelanaysa waa u qurxiye u siineeyey xoogaa wuxuu arkay nebiyullaahi aadam calayhi salaam oo soo taagan وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين waxaan idigu dhaaranayaa naaseex baan idii ahay haa dantiinnaan ka shaqaynaya dantiinnaan doonaya dantiinnaan maaragtay yacni naasax baan idii ahayoo khayr darre idinlama doonayo haddaad arrintan samaysaan khayr un baad helaysaa nebiyullaahi aadam markuu arkay ibliis oo ilaahay ku dhaaranayo geedkii sidii bay ku cunay waa kii kulligood samada laga soo wada dejiyey ilaahay arlaga uu soo diray subxaana laakiin nebiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay wuxuu weydiistay toobad sida ibliis oo kale siduuna u khasaareen ayuu wuxuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay ii dembi dhaaf oo ii naxariiso oo haddaadan ii naxariisan daalimiintoo kalean ka mid noqonaya ilaahay wuu gargaaray subxaana wa tacaala cadowgaasaa la doonaya inaynu fahanno oo aynu u fahanno sidii allah subxaana wa tacaala noo sheegay cibaadaduu kuu qurxinayaa cibaadada war aaway ilaahay diintiisa aaway nasteexadii aaway diintii laysu sheegay aaway dacwadii aaway in maaragtay qofku isliido inuu isliido waxba uuna isu malayn ogaado inuu addoon yahay ogaado in ilaahay abuurtay subxaanahu wa tacaala wax walba lahow ama cilmi lahow ama caamo ahaw ogaatid allah subxaanahu wa tacaala inaad u baahan tahay inaad makhluuq tahay inaan shayddaan in badan kuu qurxin inaan shayddaan jidka ilaahay subxaana wa tacaala kaa leexin iyo ilaahay aayaadkiisa cadowgaas jin iyo insiba wuu leeyahy mid insiyana waad arkaysaa mid jinniyana waad arkaysaa waa nin walba oo ilaahay aayaadkiisa diida iyo kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam waa cadow ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadow jin ah iyo cadow insiya marka waa inaan ka digtoonaannaa ilaahayna aan ka magangallaa subxaanahu wa tacaala عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع يا إخوتي بعضكم لا يرى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد إلهي سبحانه وتعالى نعبرتي سو خالق كونك وحو نعبرتي نوت المامي أيام هذا السكالة الله سبحانه وتعالى وحو نوت المامي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني ينسي بإنه إلهي سبحانه وتعالى وأبورتي إني إلهي عابدان إني إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسة كتاب كيسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن وحي الله سبحانه وتعالى وقتل قلي أوسو دجي إني قاتان موضوع وحو نقندونا مانتا إن شاء الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلهي وحو نوت المامي سبحانه وتعالى مركنا أبورتي ونوت المامي إنو نو أبورتي عباده إيا إلهي آيات كي سينان قادنو وهو الله دنا نوت المامي إن عدو أين لنا إلهي وحو لي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان وحو يديه عدو كي يشا عدو وحندول استاقي دونا إن شاء الله تعالى عدو إلهي سبحانه وتعالى أوت المامي عداوده إنو هيو waxa uu inala doonayo meesha uu inagu wado qaababka dadka muslimiinta u dhumiyo qodobadaas oo dhan insha Allah taala
waxaan isku dayaynaa inaan dul istaagno maxaa yeelay in badan oo maanta walaalayaal ka mida dadka muslimiinta jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala buu ka leexiyey iyadoo ilaahay uu tilmaamayo oo uu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala faattakhiduuhu caduwa waxaad ka yeelashtaan cadowgiina fahma rabbi uu leeyahay ayaa maaragtay yani uu ka dhumiyey jidkii alle subxaanahu wa tacaala jidkii ilaahay buu ka leexiyey cadowgaa markaa isaga ah waxaan isku dayaynaa kow inaan fahanno yani maaragtay cadaawadda uu noo hayo xaggeebuu cadaawadda inooga qaaday maxaa yeelay waxaad og tihiin marka la yidhahdo qof baa cadow kuwa ah ama cid baa cadow kuwa ah waxaad ogaanaysaa qofkaas waxa aad ka samaysay xaggeebuu cadaawadda kaaga qaaday cadowgan marka ilaahay subxaana wa tacaala noo tilmaamayo ee shaydaan uu ku tilmaamay haddana alle uu leeyahay waxaad ka qaadanaysaan faattakhiduuhu caduwa xaggeebuu cadaawadda inooga qaaday haddii ilaahay baa noo tilmaamay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuuray rabbi subxaana wa tacaala markii uu abuuray wuxuu u soo bandhigay malaa'igta sababto waa inaan raadinnaa cadowgan alle subxaana wa tacaala uu noo tilmaamayo iyo meeshuu cadaawaddiisu ay ka bilaabantay markaasaynu waxaynu fahmi karraa cadowgeenna khiyaamadiisu inta ay leegtahay taatiiggiisu inta uu leegyahay si wuxuu nala doonayo makriga uu nala maleegayo waxaasaad markaa fahmi kartaa laakiin haddaaban taariikhdii aadan haynin iyo cadaawadda meeshu kaaga qaaday iyo goortuu cadow kula noqday in badan waxaad noqonaysaa inaad qaafil ka noqoto yani cadaawaddiisa iyo dhuminta uu kula doonayo inuu ku dhumiyo nebiyullaahi aadam calayhi salaam markii ilaahay subxaana wa tacaala uu damcay inuu abuuro malaa'igtuu soo bandhigay rabbi subxaana wa tacaala oo ilahay wuxuu yidhi innii jaacilun fi lardi khaliifa waxaan dhulka dhexdiisa yeelayaa khaliifo dad isku xukuma isaga dambeeya ayaan dhulka dhexdiisa yeelayaa malaa'igtii dood bay ka keeneen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dima ilaahay uma dhulka dhexdiisaad yeelaysaa qodo fasahaad iyo dhiig ku daadinaysa dhiig iyo fasahaad bay ka tacbiiriyeen laakiin ilaahay baa og subxaana wa tacaala hadafka uu nebiyullaahi aadam u abuuranayo iyo cidda ka faracmi doonta iyo siday ilaahay u adeecayaan iyo siday ilaahay ugu caasinayaan malaa'igtu waxba ma oga qiyaas unbay ku hadleen oo waxay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ilaahuma dhulka dhexdiisaad yeelaysaa qolo fasahaad iyo dhiig ku daadinaysa ilaahay baa u jawaabay subxaana wa tacaala malaa'igaysaad u malayseen maahe innii aclamu maa laa taclamuun alle wuxuu yidhi waxaan ogahay wax idin ogeyn markaasaa nebiyullaahi aadam la abuuray alle subxaana wa tacaala wuu abuuray markuu abuuray ruuxdii baa lagu afuufay markii ruuxdii lagu afuufay ayaa macallin laga dhigay alle subxaana wa tacaala cilmi wuxuu baray ashyaasha dhan magacyadooda shay walba oo caalamka saaran magacyadiisu alle subxaana wa tacaala takhasus uga dhigoo uu baray alle subxaana wa tacaala nebiyullahi aadam markii magacyadii la baray ayaa qoladii shalay dooda ka keentay abuuritaankiisii ee tidhi dhulka dhexdiisa mafasahaad iyo dhiig bay la imaanayaan ayuu rabbi wuxuu u soo bandhigay shayaashii uu baray oo ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala shayaashan magacyadooda ii sheega haddaad tihin kuwa run sheegaya waa markii macallin laga dhigay oo shayaashii la baray nebiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa malaa'igtii shayaashii la weydiiyey maxay ku jawaabeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana ilaahayow adaa xumaan ka nasahan wixii aadna bartay uun baan naqaannaa ee shayaashan ma garanayno nebiyullaahi aadam calayhi salaam baa markaa waxaa looga dhigay macallin ninkii shalay ay doodda ka keeneen ee ay fasahaadka iyo dhiigga xaggiisa ka tilmaamayeen ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu uga dhigay macallin alle subxaana wa tacaala macallin buu uga dhigay nebiyullaahi aadam shayaashii buu baray markuu shayaashii baray ayaa macallinkoodii ilaahay haddana amar wuxuu ku bixiyey inay u sujuudaan nebiyullaahi aadam calayhi salaam inay sujuud ula dhacaan sujuuddaa ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala malaa'igtu isla markiiba way sujuudeen maxaa yeelay waxaan raadinaynaa oo qisadaasoo dhan aan u soo maraynaa cadowgeenna kiisa ugu weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala doonaya maanta inaan xusbigiisa ku biirno inaan ilaahay aayaadkiisa diidno inaan sharciga alle subxaanahu wa tacaala ka hor nimaadno inaan rabbi aayaadkiisa diidno oo maanta maxaa yeelay intaas waa la qaylinaya
waxaa la leeyahay kitaabka ilaahay u soo laabta war ilaahay subxaana wa tacaala baa idin badbaadinaya war ilaahay baa idin nooleeyey war ilaahay baa idin ahaysiiyey dadku qaafilay ku jiraan cadowgaa marka waxaan intaasoo qiso u maraynaa inaan fahanno cadowgeenna iyo meeshu ka bilaabno mar allaale markii nebiyullaahi aadam calayhi salaam malaa'igtii ay u sujuudeen ayaa nin baa sujuuddii diiday ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta wuxuu ku sifeeyey waxay qaataan ama ay fartoomaan wixii ilaahay faray wixii ilaahay subxaana wa tacaala ka reebayna way ka reebtoomaan mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu faray sujuuddii isla markiiba sujuuddii bay la dhacaan maxaa yeelay sifadoodaaba waxay ahayd wixii ilaahay farana way fartoomaan wixii alle subxaana wa tacaala ka reebayna way ka reebtoomaan markii sujuuddii la amray isla markiiba sujuuddii bay la dhaceen laakiin nin baa sujuuddii diiday ilaahay baa markaa su'aal weydiiyey subxaana wa tacaala qaala maa manacaka an laa tasjuda id amartak war maxaa kaa manciyey buu rabbi subxaana wa tacaala inaad sujuuddaan ku amreen maxaa kuu diiday inaad sujuuddo muxuu ku jawaabay khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min diin yani wuxuu ku jawaabay maxay ilaahayow ninkan aad leedahay u sujuud anigana naar iyo olol baad iga abuurtay isna dhoobaad ka abuurtay halkaa isla markiiba yani wuxuu ilaahay aayaadkiisii ku diiday oo ilaahay kalaamkiisii ku diiday oo amarkii la siiyey ku diiday meeshii ilaahay ka abuuray subxaana wa tacaala oo wuxuu yidhi isna waxaad ka abuurtay maxay olol baad ka abuurtay isna dhoobaad ka abuurtay aniga olol baad iga abuurtay isna dhoobaad ka abuurtay sidaa liajligeed uma sujuudayo halkaasuu sujuuddii ku diiday ilaahay subxaana wa tacaala markuu sujuuddii diiday ee weliba uu ku faanay meeshii uu ka yimi su'aal baa u baahan inaynu maanta isweydiinno meeqaa walaalayaal ku faanta meesha ay ka yimaadeen iyadoo dad muslimiina lagu dulminayo iyadoo dad muslimiina cirdigooda iyo sharaftooda lagu dulminayo oo aad u malayso inaad ka sarrayso yacni waa sunno ibliis maaragtay uu jeexay ciddii ku raacdana ibliis bay ku raacday intee maanta diidan intee maanta maaragtay ku andacoota halkan aan ka soo jeeda anoo ree hebela anoo kida ah ibliis unbay ka soo jeedaan iyaguna sunnahaas ibliis baa jeexay maxaa yeelay dadku nebiyullaahi aadam calayhi salaam bay ka wada yimaadeen cid ka sarraysaa ma jirto cid ka hoosaysaana ma jirto ciddii ilaahay ka baqdaana ilaahay subxaana wa tacaala u dhow ee ilaahay aayaadkiisa qaadata cid ka fadilanna ma jirto laakiin in badanoo maanta ka mid ah dadka muslimiinta waxay ku qanciyeen inayba kala sarreeyaan reeruhu cajiib inay dadka muslimiinta kala fadilsan yihiin oo kala waaweyn yihiin oo wax kale yihiin xaqiiqatan maahe waa sunno ibliis jeexay oo maanta caalamka uu ku dhaqmayo cadowgii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay ee noo tilmaamay inaynu cadaawad ka qaadanno wixii uu inoo jeexay ee nebiyullaahi aadam calayhi salaam sujuuddiisii ku diiday ayaynu maanta raacsanna markuu sujuuddii diiday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ibliisow meeshanu meel laysku kibriye maaha meel lagu qooqo maaha meel lagu amar dideeye maaha hoosu deg waxaadna ka mid tahay kuwa khaasiriinteeda yani maalinta yowma alqiyaame la cadaabayo ibliis markuu arkay in ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisii laga fogeeyey oo ciqaab u dambaynayo codsi buu soo jeedsaday ilaahay subxaana wa tacaala buu codsi u soo jeedsaday wuxuu yidhi rabbiyow ilaahayow waxaad ii daysaa ilaa maalinta laysa soo saaray intaa nafta ha la ii daayo ha la ii dibdhigo oo talo muxuu dibdhiganaya ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka aqbalay oo ilaahay wuxuu yidhi waxaad ka mid tahay kuwa loo dibdhigay mar allaale markuu helay ballanqaadkii alle subxaana wa tacaala ila wuxuu og yahay ballanqaadka ilaahay yani maaragtay inuu dhab yahaye markuu ballanqaadkii helay ayuu wuxuu soo bandhigtay wixii uu u dibdhiganayey nafta oo muxuu yidhi fabima aqwaytanii laaqcudana lahum siraataka almustaqiim uma laaatiyannahum min bayni aydiihim halkaasu ka baxa wuxuu tilmaamay ballan cidhumintayda daraaddeed ballan waxaan ku qaaday inaan jidka toosan fadhiista jidka toosan inaan istaagaa oo midig aan kaga imaadaa horay aan kaga imaadaa oo gadaal aan kaga imaadaa oo midig kaga imaadaa oo bidix kaga imaadaa oo ilaahay in badanoo kugu shukrida aadan helin yacni ninkii nafta dib dhigtay ee ogaaday naxariistii ilaahay subxaana wa tacaala in laga fogeeyey wuxuu sheegay oo ilaahay hortii uu ku caddeeyey
waxaan nafta u dibdhiganayaa waxay tahay ballan waxaan ku qaaday jidka toosan inaan istaagaa jidka xaqa oo macnaheedu maxay tahay caqiidadu kaa weeraraya oo maanta waxaad arkaysaa kuwo ilaahay ka mashquulsan subxaana wa tacaala makhluuqaadkii bay ku mashquulsan yihin intuu ilaahay ka mashquuliyey allihii abuurtay ee cirkan iyo dhulkan iyo awooddan iska leh waa arki la'yi addoommay ku mashquulsan yihiin addoommay u maleeyeen inay wax qaban karaan inay wax tari karaan ilahayna waa ka leexiyey subxana wa tacala addoonkiibu wuxuu u saaray maxay taash buu u saaray allihii cirkan iyo dhulkan samaystay ee nafta geliyey ee indhaha siiyey ee khalqay ee wuxuu u abuuray u tilmaamayna wuu ka leexiyey caqiidadu kaa weeraraya oo cilmigu kaa weeraraya oo maaragtay wuxuu kaa weeraraya akhlaaqdu kaa weeraraya oo yacni meel walba oo khayr ah wuxuu isku dayayaa inuu kaa weeraro oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu kuugu talagalay uu kaa leexiyo kaasaa marka waxaa la doonaya walaalayaal in la fahmo cadaawaddiisa kaasaa waxaa la doonayaa waa cadowga runta ah ee la doonaya maanta in lala dagaalamo khiyaamaadkiisa la fahmo ilaahay subxaana wa tacaala laga hoos galo sababtoo ah bal waxaad tusaale soo qaadataa ninkaasu meesha dagaalka qaabku u gelayuu tilmaamay wuxuu yidhi horaan ka weeraraya oo gadaal baan ka weeraraya oo bidix baan ka weeraraya oo midig baan ka weeraraya xaggee adiga kuu bannaan marka haddii horey lagaa soo galo oo gadaal lagaa soo galo oo midig lagaa soo galo oo bidix lagaa soo galo cirkana ma aadi kartid oo baalal ma lihid oo kor uma bixi kartid dhulkana ma geli kartid macnaha waxay ku tusaysaa takhdiidka meel allaale meeshii ay isku dayaan inay ka wanaagsanaadaan waan ka weeraraya meel allaale meeshay rabaan khayrkaa baan ka soo gelaya bahalkaasaa la rabaa in laga hortago cadowgaasaa la rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga hoos galo in ilaahay aayaadkiisa dib loogu soo laabto inuuna maanta inaan mashquulin qaar baa iyagii isku mashquulsan shaydaan baa u qurxiyey adaa adi ka fiican sheikh baa sheikh ka fiican kanaa kan ka fiican meeshii la rabay allah subxaanahu wa tacaala diintiisa in loo gargaaro dadka muslimiinta diinta loo sheego xaqa loo caddeeyo wuxuuba ku mashquulinayaa inuu isagu waxyahay wuxuu ka dhaadhicinayaa adaaba wax aba markaasuu le wallahi cid kaa sarraysa mada yacni wuxuu adeegsanayaa maxay khiyaamo walba oo uu isku dayi karo qofka muslimka inuu ku manjaxaabiyo wuxuu isku dayaa inuu adeegsado waxaa la doonayaa marka in la fahmo ninkan wuu dhaartay ilaahay hortii buu ku dhaartay idhumintayda daraaddeed buu yidhi wuxuu sheegay qaabkuu dagaalka u gelayo ee uu kuu weerarayo waxaa la doonayaa marka inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka magan gasho ilaahay aayaadkiisana aad dhab u qaadato aan qiso soo qaadanno samadii buu dagaalkii ka bilaabay intaadan samadii laga degin nebiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xawaa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u tilmaamay yacni maaragtay inay jannada galaan ay degaan waxay doonaan ay ka cunaan laakiin geeda iska ilaaliyaan ilaahay wuxuu u tilmaamay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi geedka haddaad cuntaan daalimiintaad ka mid noqonaysa kuwa wax dulmiyey ayaad ka mid noqonaysa ibliis shaqadiisii iyo dhaartiisiiba samadii buu ka bilaabay iyo jannada gudaheeda nebiyullaahi aadam iyo xawaa buu u tegey markaasuu geedkii la yidhi ha cunina buu wuxuu u qurxinayaa inay cunaan oo jannadaba uu sidii uga saaray wuuna ku guulaystay nebiyullaahi aadam iyo calayhi salaam iyo xawaa buu yimi markaasuu yidhi geedkan waxa laydigu diiday ma taqaanaa waa maya ilaa an takuuna malakayni ow takuuna min alkhaalidiin imaa lama melag oo ilaahay agtiisa qiimo ka leh ama meeshan inaad ku waartaan wax kale laydinguma diidana haddaad geenta cuntaan laba faa'iidaad helaysa ilaahayna muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddaad geedkan cuntaan daalimiintaad ka mid noqonaysa wixii kaloo dhan baa loo xalaaleeyey oo loo banneeyey oo jannadii baa la yidhi sidaad doontaan u dhex dega waxaad doontaan ka cuna laakiin geedkaa iska ilaaliya meeshiibuu ka soo galay markaasuu yidhi geedkan haddaad cuntaan qiimaad yeelanaysa waa u qurxiye u siineeyey xoogaa wuxuu arkay nebiyullaahi aadam calayhi salaam oo soo taagan dhaar buu maray waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waxaan idigu dhaaranayaa naaseex baan idii ahay haa dantiinnaan ka shaqaynaya dantiinnaan doonaya dantiinnaan maaragtay yacni naasax baan idii ahayoo khayr darre idinlama doonayo haddaad arrintan samaysaan khayr un baad helaysaa waa ninkii ilaahay uga digay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam markuu arkay ibliisoo ilaahay ku dhaaranayo
geedkii sidii bay ku cuneen waa kii kulligood samada laga soo wada dejiyey ilaahay arlaga uu soo diray subxaanahu wa tacaala laakiin nebiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay wuxuu weydiistay toobad sida ibliis oo kale siduuna u khasaarin ayuu wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay ii dembi dhaaf oo ii naxariiso oo haddaadan ii naxariisan daalimiintoo kale aan ka mid noqonaya ilaahay wuu u gargaaray subxaanahu wa tacaala cadowgaas markaa walaalayaal cadowgaas qaababka uu dadka muslimiinta u dhimiyo xanta iska daabaalgiyo tusaale aan u soo qaadanno maantao dhan mid baa kuu imaanaya wuxuu isku dayaa cid inuu kaaga sheekeeyo islaantii guri bay u wareegaysaa hebel ma taqaana heble ma taqaana waxaan loo dirsan bal intay guri u wareegto kitaab ma qaadanayso ma akhrinayso intay guri u wareegto lagama yaabo inay gabadhii wacdiso intay guri u wareegto lagama yaabo khayraad inay u sheegto markay isu tagaan wax kale lagama sheekaysano heblo waa sidan hebel waa sidan hebel maaragtay sida uu yahay waxaan loo dirsan buu ku mashquulinaya waxaan loo dirsan ayuu ku mashquulinaya cadowgaasaa la doonaya inaynu fahanno oo aynu u fahanno sidii allah subxaana wa tacaala noo sheegay cibaadaduu kuu qurxinaya cibaadada maanta meeqa wax ismooday makhluuqaad waxbay isu maleeyeen waxbay ismoodeen ilaahay subxaana wa tacaalana inay addoommo yihiin isma oga waxbay isu maleeyeen xoogaa baa ilaahay siiyey culuum ah xoogaa diinaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala intii bay la quruursan yihiin shaydaan baa u qurxiyey maaduu sheekh hebel kaa rayn karaa maaduu hebel kaa rayn karaa maaduu hebel kaa hor hadli karaa maaduu hebel maaragtay wax ku odhan kara cajiib war aaway ilaahay diintiisa aaway nasteexadii aaway diintii laysu sheegayay aaway dacwadii aaway in maaragtay qofku isliido inuu isliido waxba uuna isu malayn ogaada inuu addoon yahay ogaado in ilaahay abuurtay subxaanahu wa tacaala wax walba lahow ama cilmi lahow ama caamo ahaw ogaatid allah subxaanahu wa tacaala inaad u baahan tahay inaad makhluuq tahay inaan shaydaan in badan kuu qurxin inaan shaydaan jidka ilaahay subxaana wa tacaala kaa leexin iyo ilaahay aayaadkiisa waxaan ku soo gabagabaynayaa shaydaan in badan buu ilaahay subxaana wa tacaala dadka aayaadkiisa ka leexiyaa cadowgaas jin iyo insiba wuu leeyahay mid insiyana waad arkaysaa mid jinniyana waad arkaysaa waa nin walba oo ilaahay aayaadkiisa diida iyo kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam waa cadow ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadow jin ah iyo cadow insi ah marka waa inaan ka digtoonaannaa ilaahayna aan ka magangallaa subxaanahu wa tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بطهر بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بطهر بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن